bismillah. Hadda waxaan inoo bilowday casharkeennii ahaa sida loo sameeyo Gmail cusub. Waxaan isku dayaynaa in yar idigu fahansiiyo anigoon waqti badan idiga cunin. Okay, marka ugu horeyso waxaad soo furaysaa Gmail app-kaaga, kadibna waxaad tagaysaa meesha ay ku qoran tahay add another account. Add another account ma ku dhufatid waxaa dooranaysaa ciwaanka aad rabtid inaad Gmail-ka aad rabtid inaad samaysto noocuu yahay. Haddii aad rabtid Google account ama haddii aad rabtid Yahoo ama haddii aad rabtid Outlook Hotmail waxa u baahan tahay. haddii aad Gmail u baahan tahay, Google caadi u baahan tahay, mid aad u qorayso ku dhufanaysaa. Mid aad u qorayso ku dhufanaysaa. Xogaa yar buu wareegayaa loading dhahaya. Kadibna waxaa ku soo baxaysa page-kan. Wuxuu ku leeyahay sign in. Haddii aad ciwaan haysto sign in baraysaa, laakiin hadda waxaan rabnaa inaan sameyno ciwaan cusub. Marka waxaan leenahay create account. Marka wuxuu ku dhahayaa for myself, adiga miyaa rabtaa inaad naftaada u samaystid mise business-kaaga rabtaa inaad u samaystid? Adiga rabtaa inaad naftaada u samaystid, sidaa daraadeed waxaa ku dhufanaysaa for myself. Okay, aan hore u soconno. Hadda waxaad dooranaysaa magaca u baahan tahay inaad ku isticmaashid Gmail-kaaga. Ku qorno tijaabo yar. Okay, waxaad taabanaysaa next. Kadib waxaad dooranaysaa taariikhda aad dhalatay oo loo baahan yahay required. Waxaan iska dhahaynaa 5 bisha 4 2005. Okay, hadda waxaad dooranaysaa nin iyo dumar waxa qofka aad tahay. Haddii aan tahay mail, hadda mail baan soo dhufanaynaa. Kadib waxaad dhahaysaa next, hore ugu soconaysaa. Kadib wuxuu ku leeyahay labadan format kee baa rabtaa. laba tusaale soo ku siiyay, laakiin mid Gmail anagu aan leenahay warna magaca anagu leenahay ku isticmaalo. Marka xaggaas ku dhufanaysaa create your own Gmail address. xaggaana ku qoraynaa tijaabo yar mail 1 asaa ku geliya calaamada gmail.com. marka hore ugu soconaysaa next waa leedahay. Kadib waxaad gashanaysaa password adiga aad leedahay. Password adan ilaawin oo adag inta badan ku xiro xaraf weyn ka bilow. Waan ku qorinaa tijaabo mail tijaabo mail 2022. Okay, hadda Gmail-keena waa noo samaysan yahay. meeshan inta badan waxba ha isku wareerin, hore uga soo yes I'm in baa dhahaysaa. Okay, hadda Gmail-kaas uu ku samaysan yahay tijaabo yar mail.com. tijaabo mail 1.gmail.com. next baa dhahaysaa. meesha u dambaysa ayaa agree baa dhahaysaa. wuxuu ku sheegayaa waxyaabaha ay ogol yihiin waxyaabaha aysan ogoleyn. kadib waxaad dhahaysaa I agree. password-kaaga safe dhaanaysaa haddii aad u baahan tahay si aadan u ilaawin.